marka hore ilaahay baa mahad leh madasha khayrka badan la isku keenay marka labaad soo abaabulayaasha nolosha quruxda badan leh dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay maanta farxad mug iyo miisaan inoogu tahay inaan ka soo qayb galnay Professor Xasan Halas oo sida looga soo sheekeynayay aad u joogteen maanta waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii arrintaa iyada maalintii dood markuu ii sheegay waxaan ku idhi cid kaloo noqon lahaydba garan maayo cid kale oo arrinkaan noqon lahaaba garan maayo baan ku idhi xasan waynu isla garanaynaa Somalilandna way garanaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeedna wuu garanayaa xasan wax badan buu lafiisa u shaqaysanayay maantase waxaynu ku soo dhawaynaynaa saaxadan magaranaysaa xildhibaannimada uu doonayo dalkiisa iyo dadkiisa inuu shaqeeyo waxaan isleenahay waa maalintay ku habboonayd baad garatay Professor Xasan ku soo dhawow gacan iyo garabba waan ku siinaynaa xasan waa fariin xasan Professor Xasan waa fariin weey waa mare wuxuu maanta buuxsaday uu reerka ka soo jeeday buuxsaday quradnimadii bay buuxsadeen maadaama maanta ay u horeeyeen aad baan ugu faraxsanahay waana nagu soo dhawaynaynaa kaasi waa qodob weyn xasan waxa weeye ninka xasan la yidhaa nin halkan ku soo koobi karno maaha waana afurisadii lacada u horeysa ilmaha dhasho waxay dhaaf furisale waa afurisadii buu noqday gobolada awdal iyo salig ninkii ugu horeeyay ee wuxuu noqday isku soo taaga musharaxnimada golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland xasan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow beelaha soo sharaxay ee keenay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay waad hesheen waana ku mahadsantihiin waxaan u sheegayaa beelaha kale ee u dhiman tahay ee u soo socda waqtigii biilha ka helo way dhammaatay waqtigii xalku wuu dhammaaday waqtigii xulkaa maanta loo baahan yahay waan cid kastayba ciddii aad keento waa lagaa jeegarayni haddii aanay soconayna waa lagaa reebi ama rag ha ahaado ama gabadh ha ahaado waa lagaa reebi taa haddaan ka imaado waa run weeyi halkan waxaa ka hadlayay rag badan oo miisaan leh oon aad iyo aad iyadu hambalyaynayo waxaan hadalkii qiimaha lahaa ee xaaji cumar cabdi xige aan aad iyo aad aan u soo dhawaynayaa gaabka maqan ee aqoonyahanka ee siyaasadeed ee badda hindiya dhex socday ee hahaabayay ee mar odayaasha u gelayay marna ciidan kale oo tabar u lahayn gelayay waxaan leeyahay xaaji cumarow waan kuu qirayaa doon bilaa naaquuda doon bilaa kabtana wada siyaasadeeda way waday maalinba meel bay ku caariyaysay maalinba dabashu xagga ay ku xaysay ku caariyaysay taana waxa lagaga baxayaa in la helo aqoonyahankii rugcadaaga ahaa ee hawshani ka talin lahaa ee u fadhiisan lahaa ee golahan dhaqanka iyo odayaashan iyo umurahanba ka qaban lahaa ee waxa weeye cid kasta oo geyn oo baska guri doodoonaysa ka qaban lahaa loo baahan xasan taana hormuud buu yiri hormuud bal xasan oo tahay halkan waxa fadhiya Professor Ibrahim Xaaji Maxamed ay war arrinta yar cidada kale nagala wareegay arrinta yar cidada kale ku dawaqmay hal nagala wareego aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa aad baan nii bogaadinaynaa sida quruxda badan ee loo agaasimay ee heer qarana ee xafladan maanta loo qabtayna waa mid aan marnaba aan ilaabaynin aad iyo aad waan u soo dhaweynaynaa waxaan ku soo gunaanadayaa ciddii xasan keentay beelihii keenayoo waad asiibteen waxa kaloo asiibteen horeynta aad tidhaahdeen war hortiin baan dhasheen naga joogana waad asiibteen aad iyo aad baan idin bogaadinayaa
aad baan ugu soo dhaweynayaa madasha iyo meeshana maalinteeda ayaan haddii ciddii la gaarsiiyo ayay joogtaa waxaana rajaynaynaa ciidan ku tufnay ma soo noqon xasan kugu